Maanta waxaan baranaynaa casharkeena oo ku saabsan using the mini toolbar iyo using contextual tabs using dialog box launcher. Saddexdaas maanta arkaynaa wuxuu ku saabsan yahay haddaa rabtid inaad furato Word-kana start button-ka tegaysaa, then all programs ku dhufanaysaa, waxaa kasii tegaysaa Microsoft Office 2013, then waxaad kasii dooranaysaa Word baad dooranaysaa. Anigu wuu ii furan yahay. Markaad furatid waxaan arkaynaa mini toolbar-ku wuxuu yahay. Marka mini toolbar-ka waxaa loogu talagalay in uu kuu fududeeyo inaad qoraalkaaga aad kalarka ka bedeli karto, size-kana aad ka bedeli karto adigoo aadan tagaynin qaybta kore ee ku saabsan fontiga. Marka haddeertaan intaan yaroo meesha ku qoran ku koobi garay meesha adiga haddeertaan aad furatay, kadibna tijaabi. Marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan kalarka ka bedelo, waa highlight gareynaysaa. Sidee u highlight gareynaysaa? Meesha ii sheeg insertion point-ga meesha ugu dambeysa ayaad tabs-ka ay ku qoran tahay baad dhaq ku siinaysaa. meesha boodboodaysa waxaa la dhahaa insertion point, then left click-ga qabanaysaa adoo hayo baad mouse-kaaga ama ii sheeg touchpad-kaaga ayaad ku hareynaysaa. markaasaa u hareysid ama u highlight gareysid, then waxaad sameynaysaa kalarkaad ka bedelaysaa. then mini toolbar-ka markuu kusoo baxo kalarkaad ka bedelaysaa. so waxaan ka dhigaynaa madow, then fontigana ayadaan dooranaa. ayad waxay u taagan tahay italic, shortcut ay leedahay control plus I baad dhigi kartaa, ama waxaad dooran kartaa bold, ama ii sheeg u-da underline ay u taagan tahay control plus u. waa highlight hoos baad ka xariiqaysaa. okay, marka kalarkana haddaa rabtidna background-kan waa bedeli kartaa. marka taasi muhiim maahan. size-kana meesha kore waaye, size-ka rabtid aad ka dhigaysaa. haddaa rabtidna bullet points-ka kusoo dari kartaa. bullet points-ka ku dhufanaysaa, dhibcahaas hoosaad dooranaysaa ama kuwaasaad dooranaysaa kaa rabtid. okay, markaa saas aad samaysid haddeertaan waxaad format garaysay qoraalkan, then waxaad sameynaysaa haddaa rabtid midka ugu horeeyo baad haddaa rabtid kalarka ka bedelaysaa. okay, then bullet point-gana waa ka saaraysaa, none baa ku dhufanaysaa markaa ka saaraysid, kadibna kalarka ka bedelaysaa. marka mini toolbar-ka saasuu u shaqeeyaa. paragraph-ka aad qoraysid ama wuxuu yahay ama documenti ayaad adoon meesha kor aad aadin kasoo qad page-ka ugu dambeeya joogtaa, mana rabtid inaad markasta kor aad falaarta aad geyso, then kalarka ayaad si fudud u bedeli kartaa, fontiga bedeli kartaa. marka saasuu u shaqeeyaa. marka qaybteena kalena waxay ku saabsan tahay using contextual tabs-ka waxa uu yahay baan baranaynaa. okay, marka using contextual tabs-ka markaad rabtid inaad kusoo darto, waxaad tegaysaa meesha kore insert tab-ka aad ku dhufanaysaa, falaarta la soco, then waxaad ku dhufanaysaa smart aad-kaasaad ku dhufanaysaa, then box-kana kusoo baxayo kaartida markaad dooranaysaa. waxaana loogu talagalay in ii sheeg waxyaalaha qaarkood inaad si iskugu xigxigaan, sida kasoo qaad management-ga sida iskugu xigo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, ii sheeg ra-iisul wasaaraha, ama ii sheeg company sida dadka ay shaqadooda iskugu xigxigto, ama project-ga markaad sameynaysid project A, project B, project. okay,
insertiga markaad tagtid taabaa ku dhufanaysaa. taab markaa ku dhufatid midka hierarchy-ga dooranaysaa, kadibna kaa jeceshahay ayaad dooranaysaa. aniga kan baan rabaa, marka adiga kaa rabtid samayso. markuu saa kuugu soo baxo, midka ugu horeeya ayaan rabnaa inaan ku qorno portfolio. kan ku xigana waxaan ku qoraynaa strategy. kan kalena waxaan ku qoraynaa project A. midka kalena waxaan ku qoraynaa project B. midka kalena waxaan ku qoraynaa project C. marka qaabkana arkaysid waa qaab ii sheegay sida projectiga iskugu xigxigaan. marka projectiga waxa ugu weyn portfolio-ga waxa ku sii xigo strategy. strategy-ga waxa weeye waa planning-ka waaye, sida projectiga uu kala qorshaysan yahay. kadibna strategy planning-ka marka qorshe dejintaasi waxa waaye si u kala baxaan. marka project A muxuu yahay, muxuu qabtaa, project B muxuu ka sii yahay, sidee iskugu xigxigaan, relationship-kooda waa sidee. marka project A ayadoon la sameynin project B lama sameynayo, project C na lama sameynayo, laakiinse kulligood waa isku xirayiin. mararka qaarkoodna project B soo socdaba project B iyo C na la sameynaya. mid kastana team baa loo sameynayaa oo u qaabilsan oo projectigaasi fuliyo. marka sida projectyada iskugu xigxigaan waa ka dhigi kartaa, ama waxyaalo kalena oo adiga aan maskaxdaada ku jirana waad ku degi kartaa, ama internetka gal ka fiiri qaabab kale oo badan oo isheeg, ama bugaagta ka fiiri sida isheeg projectyada loo diyaariyo. meesha ugu koreetana haddaa aragtidna design kaas haddaa aragtid waxaad dooranaysaa qaabka u ekaanayo, waa dooran kartaa. okay, smart style-ka ka bedeli kartaa, colorkaad sidaa ka dhigi kartaa. okay, meeshan kalena haddaa aragtidna waa bedeli kartaa oo mid kale layout-ka bedeli kartaa, noocaasa ka dhigi kartaa. okay, saa jecesha ayaa ka dhigi kartaa. haddaa aragtid saana ka dhigi kartaa. marka meeshan kalena waa colorka change the colorka ka bedeleysa, colorka aad jecesha ayaa ka dhigaysa. sida kasoo qaad kan hadaan ka dhigno, ama kan, ama kaa. okay, marka adiga saa jeceshahay ka dhig. marka cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay mini toolbar iyo contextual tabska iyo maxaa kale using dialog box-ka. marka dialog box-kana asigana muxuu yahay, marka ku dhamaysatid waa iska xiraysaa, extra ku dhufanaysaa. marka dialog box-ka waxa weeye waa icon yar waaye, oo meesha hadda fiiri clipboard-kaas haddaa fiirisid, meesha haddeertaan aan taabtay iconkaas haddaa taawatid baa waxaa la dhahaa dialog box launcher baa la dhahaa. haddaa ku dhufatid box yar baa kuu soo baxayo, ama fontiga ku fiiri. fontiga haddaa ku dhufatid boxkaasaa kuu soo baxayo. marka boxkaasi waxaa loogu talagalay inaad waxaa rabtid aad ku dari kartid, waxaa rabtidna aad ka jari kartid. adjustment yaa laga sameeyaa qaybta fontiga. marka dialog box launcherka kuwaasaa la dhahaa. haddaad wax ka bedesho sidiisa kusoo celi, haddii kale qof kale ku wareerayo cashirkan aan gaarin. marka cashirkeena practicalka saa u sameeya. marka wordka ka bixaysidna waxaad ku dhufanaysaa
qaybta x-ka close ku dhufanaysaa. Don't save. Okay, marka khayr idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.